رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. kusoo dhawaada walaalayaal xalaqad tobanaad ee barnaamijkeeni tababarka nolosha guurka. waxaan xalaqadii horeeto uga soo sheekeynay oon uga soo hadalnay tilaabada koowaad ee ku xiriirsato guurka oo ah doonashada gabadha. waxaanu dhahnay doonashadu keliya waa ballanqaad in la isguursado waa muujin aad muujinaysid rabitaan guur gabadhan aad guursanaysid. midda kaleeto guur maahan doonashadu suuratulfaatix in la akhriyana guur maahan, ballan in laisguursado ahna guur maahan, hadiyad in la siiyana guur maahan, in faraanta laisku geliyana guur maahan, meherka in la siiyo meherkii ka horna guur maahan. intaas oo idil waa ballanqaad, intaas oo idil waa doonasho, intaas oo idil waa doonasho iyo ballanqaad aad ballan qaadaysid inaad guursatid gabadhan. ilaa iyo hadda gabadhan iyo wiilkan isma guursanin, wayna kala fog yihiin. haddii wiilku aabbahay gabadha uu ku dhaho gabadhaada ii guuri, aabbihiina uu ku dhaho wuu ku guuriyey, markaas ayay xaas noqonayaan, markaas ayay lamaano noqonayaan. laakiin intaas ka hor ma ahan laba isqabo, ma ahan lamaano. xalaqadii horeeto sidoo kaleeto waxaa uga soo hadalnay yaa ku badan inaad guursatid, haweenkeed doonan kartaa ood guursan kartaa. waxaan uga soo hadalnay amaro u badan wiilka gabadha doonanayo iyo amaro ka xaaraan ah wiilka iyo gabadha labadaba. waxaan ka soo hadalnay sidaas oo kale amar muhiim ah, khidbada doonashada in la buriyo. ma la burin karaa doonashada? haddii wiilku ku arko gabadha uu doonanayo maxaa lahayaa amaro aan u qalmin ama aan ficnayn, uu burin karaa. waxaa u banaan inuu cudur daarto oo si adaab leh u dibgurasho u sameeyo. sidaasoo kale gabadhan waxaa u banaan inay buriso doonashadii iyo ballantii la qaaday, ayada oo la tashanayso aabaheed iyo hooyadeed. haddii ay aragto amar aan u ogolaanaynin maxaa la dhahay wiilkaas inuu fiican amar tusayo inuu wiilkaas fiican, si loo burin karaa waxaa loo burin karaa ugu yaraan ina dhahdeed maxaa la dhahay naga raali noqdo, amarkan ma sii wadi karno, looma baahno. maxaa la dhahay muhiimna maahan in maxkamad la tago, muhiim maahan in dadka loo sheego, ma ahan muhiim in waxyaabo maxaa la dhahay la sameeyo, maadaama awalba uu ballan ahaay. haddana ballantii dib ayaa looga gurtay. hadda ka warama hadiyadaha doonashada iyo shukaansiga intuu socdo laisku hadiyeynayo. haddii wiil gabar maxaa la dhahay oo maxaa la dhahay sanad ama 2 sano ama bilooyin badan wada socdaan, gabar maxaa la dhahay oon u hadiyeeyo maxaa la dhahay waxyaabo aad u fara badan, hadiyado iyo maxaa la dhahay badar guriga uu sii geeyo, shay-an min alxalwayaat iyo xalwado iyo waxyaabo uu sii geeyo, ama dahab iyo wax u hadiyeeyo. waa maxay xukunka hadiyadahaas? khidbadaas inta doonashada iyo shukaansiga uu socday hadiyadihii uu siiyey. mar kale walaalayaal ogaada, doonashadu weli gabadhan lama siinin wiilkan, weli muusan guursan gabadha. waa maxay xukunka hadiyadahaas? hadda xataa hadiyadaha cinda alimaam shaafici raxmatullahi caleyh waa la celinaa oo waa loo celinaa. wiilka waxaa u banaan in haddii uu cudur daarto oo maxaa la doonashadii ka laabto inuu soo ceshto hadiyadihiisi. waxay siinayaan hadiyadihii dahabkii iyo dharkii iyo wax alaaliyo wixii gabadhaas u hadiyeeyey waa loo celinayaa. xitaa imaam shaafici wuxuu qabaa in la keeno rasiidyadii maxaa la dhahay cuntooyinkii iyo waxyaabay maqaayadii laga cunay, waxyaabay rasiidyadii inta laga imaado lacagtii loo celiyo wiilka. imaam abu xaniifa wuxuu leeyahay radiallahu canhu raxmatullahi caleyh, wax alaaliyo wixii maxaa la dhahay meeshaas ku burburay way burbureen,
oo maxaa lahaay badarkii cuntadii la cunay iyo maxaa lahaay waxyaabahaas dhan way burbureen laakiin wixii soo haray oo lahaay hadda waa la celinaa imaam kaleeto wuxuu qabaa in haddii wiilka dhinaciisa ka imaatay burinta maxaa lahaay ballantii wax loo celinayo male laakiin haddii dhanka gabadha ay ka imaatay waxaa ku waajib ay gabadhaas inay u celiso wiilkaas wax alaalay way hadiyad oo u keenay waxaa la sheegay in mar ay dhacday in wiil uu gabar kasoo doontay qoys wiilka iyo hooyadiis waxay ahaayeen balyoneero dad lacag leh aad u lacag badan qoyskii waxaa cajab geliyey oo ay la yaabeen lacagta aadka u faraha badan ee wiilkan iyo hooyadiis ay leeyihiin kadib hooyadii gabadha dhashay waxay go-aan ku qaateen damceen lacagtii kadibna waxay go-aansadeen inay guursadaan in wiilkan u guursado gabadheedii kadib hooyadii gabadha waxay u idintay inay wiilka israacaan ee banaanka isla aadaan ee xafladaha iyo banaankii maqaayadaha iyo meelo isla aadaan ee israacaan inta aysan isguursan ka hor ballan kaliya uu soo doontay oo u ballan qaaday inuu guursanayo laakiin weli caqdigii iyo heshiiskii iyo guurkii ma dhicin kadib wiilkii waxaa dhacday inuu hadiyado aad u fara badan u keeni jiray oo qoyskii gabadha ku farxi jireen hadiyadahan oo wiilka u keeni jiray waxaa dhacday in hooyadii wiilka ay ka dalbatay hooyadii gabadha wax kadibna hooyadii gabadha u awoodi weysay inay siiso kadib maamadii waxay ku xujeysay inay burinayaan maxaa la lahay ballanka kadib maamadii gabadha waxay tiri caadi waay buriya haddaa rabtiin kana laabta guurka waxaa dhacday in maamadii wiilka dhashay ee imaatay boorso soo qaadatay ee la soo baxday rasiidyo dheerdheer oo tiro badan ee tiraahday maalin hebel wiilkayga waxaas buu keenay maalin hebel intaasuu keenay maalin hebel dharkaasoo halkaas ka soo galay maalin hebel dahabkaasuu soo gaday maalin hebel qudaartaas iyo waxaasuu soo galay maqaayadaasay galeen rasiidyo ee la soo baxday aad u fara badan in ay ku xujayso kadibna imaa inaad naga aqbashaan inaan idin guursano oo waxyaabaha aa ka codsada aad ii samaysid wa imaa in aad noo celisaan lacagteeda ma banaano in wiilku uu hadiyado aad u waaweyn u keeno gabadhan hadhow dhibka kalifi kara in ay dhib dhacdo ilaa inta aadan guursan gabadhan hadiyadaha doonashada iyo inta shukaansiga dhexdeeda waa la celinayaa oo wiilka waa loo celinayaa markii lisqabto oo lagu kala tago waxaa jirta arrin kaleeto oo dhacdo qoysaska wanaagsan qaarkood ay ku dhacaan waxaa dhacdo in la sameeyo oo la iclaamiyo oo dadka loo sheego doonashadii gabadha lasoo doontay tusaalahaan waxaa leeyahay hebel wuxuu soo doontay heblaayo waxaaba laga yaabaa inay sameeyaan xaflad doonasho ah oo la keeno gabdho iyo maxaa lahaye qoysaskii iyo la imaado dadka wiilashii iyo xaflad la sameeyo oo maxaa lahaye wiilkii imaado oo gabadha imaato aroosada maxaa lahaye lasoo doontay xaflad noocaas ma banaano sharciga ayayna khilaafsan yihiin in la sameeyana ma banaano sababtoo ah rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yahay aqfuu alkhidba wa aclinuu annikaax khidbada iyo doonashada gabadha aad doonanaysid waajibka sharciga wuxuu yahay in la qariyo oon la sheegin laakiin nikaaxa iyo caqdiga iyo zawaajka iyo meherka markuu dhacaayo markaas aan sheegaynaa dadkan u sheegaynaa dadka adduunka oo dhanna haddaa awoodna u yeeraynaa u sheegaynaa laakiin intaas ka hor waa sunno ah in la qariyo maxaa yeelay waxaa ku jira maslaxadda wiilka iyo maslaxadda gabadha maslaxadda gabadha aan ka bilaawno ka warrama haddii tusaale ahaan oo kale wiil oo soo doonto gabar bil laba bil guurkii inta ka dhiman kadibna wiilkii oo dib u laabto ka insixaabo oo dib u gurasho ka sameeyo guurkii qoyskiina oo u sheegay dadkii in maxaa la gabadhii lasoo doontay wiilka koowaad dib u gurto u laabtay kadib 6 bilood sanad kadib haddana wiil kale tahay gabadhii soo doontay haddana sidaasoo kaleeto xafladaha sameynay dadka dariska u wacnay wiilka haddana sidaasoo kale dib u gurtay mar kale waxaa dhacday wiil saddexaad inuu soo doortay xafladda haddana la sameeyey dadkii dhan wada ogaadeen kadib wiilka haddana dib u laabtay dadka warka hadda uu ku dhex faafa heblaayo 3 jeer la soo doontay 3 jeer 3 nin way ka laabteen oo ma guursan waxaa laga maarmaan inay ceeb leedahay waxaa laga maarmaan dib iyo wax ceeb oo looga cararayo inay jirto maslaxadda gabadha ayaa ku jirto in aan la iclaamin oo dadka loo sheegin maxaa la lahaye khidbadda iyo doonashada gabadha sidaasoo kaleeto maslaxadda wiilka ayaa ku jirto waxaa dhacda mararka qaar in wiil uu gabar doonto laga yaabo in wiilkaas uu maxaa la lahaye farxaddii inta ka badanto sheego oo wiil dhalinyaro asxaabtiisa kamida u sheego waxaa laga yaabaa wiil dhalinyarada asxaabtiisa kamid ah inuu telefoon qabsado wuuco dadkii iyo familka uu gabadha ka guursan rabay kadibna uu u sheego oo dhaho ma waxaad ku dari rabtiin wiil gabadhiina wiilkaas hebel ah
wiilka saas waay halkaasoo ka dhacay been iyo run iyo wax been intuu isku dardaro asagoo uu saaxiibkiis wax ka tirsanayo ayaa laga yaabaa inay dhacdo. sidaa darteed maslaxadda wiilka ayaa ku jirto in la ilaaliyo doonashadaas. sunnadaa waxay tahay in la ilaaliyo doonashada. waxaa sunno ah in aan xaflado iyo waxyaabo la qaban doonashadaas ku saabsan. haddii caqdiga iyo heshiisku uu dhaco markaasoo kaleeto way noo bannaan tahay inaan xaflad sameyno. haddii ay tahay habeenka aqalgalka markaasoo kaleeto way inoo bannaan tahay in aan sameyno xaflado. waxaa jirto noqdo ku saabsan dhanka mawduuca doonashada. qofkii lagala tashtaa wiil gabar soo doonta ama gabar lasoo doontay. tusaalahaan oo kaleeto adiga waxaa tahay wiil, waxaa leedahay walaalkaaga wuxuu doontay qoys ayuu gabar ka doontay. waxaa kula soo xiriiray qoyskii uu walaalka gabadha ka guursan rabay. ilaah baan kugu dhaarinay, waxaan ku weydiinaynaa wiilkaaga gabadheena ayuu soo doontay, maxaa ka leedahay walaalkaa? qofkii lagala tashto qaadib ama qof wax doontay muxuu leeyahay? rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay addiinu an-nasiha. qulnaa liman yaa rasuula allah? qaaluu lillahi أو قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. waxaa kuu haboon inaad naseexa jeedisid. haddii walaalka uu yahay wiil dhalinyaro ah oo fiican, u sheeg dheh walaalkii waxaa ka aqaanaa wanaag, hab dhaqan wanaagsan, waxaa ku aqaanaa mas'uuliyad iyo taxamul mas'uuliyada, waxaa ku aqaanaa wiil fiican oo wanaagsan inuu yahay. haddii saas uusan ahayn oo aad ogtahay inuu xumeynayo xaaskaas uu guursanayo, aad ogtahay in laga yaabo inuu gabadhaas geliyo dhibaato aad u adag, xanuun ah, waxa cabsan u sheeg runta, ku dheh walaalkii wuu adag, way adagtahay in lala noolaado, waa mid aad u adag, in lala noolaado way adagtahay. waxaa kuu bannaan in aad ka hadashid xaqa qofka wiilkan wax soo doonta ama gabadhan soo doonta, laakiin waxaa ku waajibay inaad naseexeydid. hadda ma xan baa waxaas aad ka sheegaysid qofkaas? haddii aniga la weydiiyo qof wax soo doontay oo guursan rabay, wiilkaasna qofkaas uu xumaay, hadhaw hebel wuu xun yahay, taas maahan miya xan? ma lagu tirinayaa xan? jawaabta su-aashaas goosgooska kadib inaan la jooga insha allah.